halkani waa dalka Suudaan gaar ahaan caasimadiisa Khartoum dadka dalkani waxa ay ku caanbaxeen waxbarashada iyo saxaynimada inta badan dadka ku nool dalkan Suudaan waa dad waxbartay waxa ayna haystaan darajooyinka kala duwan ee heerka jaamacadeed sida bachelorka masterka iyo PhD Salah Yuusuf waa mid ka mid ah muwaadiniinta u dhalatay dalkan aabihiisa waxa uu geeriyooday isagoo aad u daayar waxa uu nolol adag la soo qaatay hooyadiisa iyo walaalihiisa maadaama uu ahaa qof faqiir ah Salah si uu maareeyo noloshiisa gelinka hore jaamacad ayuu dhigan jiray halka gelinka dambana uu ku shaqaysan jiray mihnadiisa kirishboynimo hadda Salah waa mid ka mid ah macallimiinta jaamacadda Khartoum oo ah mid ka mid ah jaamacadaha ugu waaweyn ee dalkan Suudaan عشان أبقى أستاذ أو عشان أدخل جامعة خرطوم يعني عانيت تعبت واجهتني ظروف يعني ما تتخيل si aan u noqdo macallin waxaan u soo maray dhibaatooyin fara badan ugu horeyn inaan ka mid noqdo ardayda jaamacadda Khartoum waxa ay u qaadatay rafaad badan وصلت لدرجات مثلا إنه أنا بكرة امتحاني ودي حاجة غلط يعني ما بنصح زول يعملها ممكن أكون مساهر للصباح مع إنه غلط لكن بكون مضطر بمشي لامي waxaan gaaray xaalad ah berito anigoo imtixaan leh waa arid xun qofna kuma waaninayo inuu sameeyo waxaa laga yaabaa inaan soo jeedo ilaa subaxii waa arin adag laakiin waan ku qasbanaa sababtoo ah waxaa jiray cashiro i dhaafay shaqada darteed صلاح يوسف واحد من الناس اللي ممكن أنا صادقته صلاح يوسف وهو مid ka mid ah saaxiibadii ugu fiicnaa aan bartay wuxuu ahaa loodkii iga horeeyay jaamacadda wuxuuna iga saaciday waxyaabo badan dabeecadiisa iyo la dhaqankiisana aad bay u fiicnaayeen maasha Allah wuxuu nala degnaa hoyga jaamacadda lamana dareemi jirin duruufaha haysta maxaa yeelay wuxuu ahaa qof aad u hadal gaaban isagoona la dhiganaya jaamacadda ayaa waxa uu ka shaqeyn jiray shaqada kirishboynimadan ceeb ma ahan waxa uu ahaa shaqsi aad u dabeecad fiican waxa uu la dhaqmi jiray qof waliba xitaa haddii ay ahaan lahaayeen ardayda macallimiinta xitaa waxa uu la dhaqmi jiray waardiyaha jaamacadda markii ugu horeysaba aad la kulantid waxaad dareemaysaa inuu yahay shaqsi aad u dabeecad fiican والظروف الاقتصادية ما بتكون عائق لأنه الزول ينجح guusha uu gaaray Salah waxa ay inoo xaqiijinaysaa in duruufaha dhaqaale ee jira inaysan ka hor istaagi karin horumar walba oo aad tiigsanayso Salah waxa uu tusaale u yahay qof walba oo dan yar ah oo doonaya inuu nolosha horumar ka gaaro ama wax barto Salah waxa uu ahaa qof ka shaqeeya kirishboynimada shaqadiisana kama faani jirin ee waxa uu soo dhigi jiray baraha bulshada ay ku kulmaan ee internetka midaasna waxa ay cadeynaysaa hawsha nooc walba ay ahaato hadday baxalaal tahay in laga shaqeyn karo anagana maadaama aan nahay eelkiisa iyo asxaabtiisa waxa inoo tahay farxad maadaama loo magacaabay Salah mid ka mid ah macallimiinta jaamacadda Khartoum ugu dambeyn qisadan ku dhacday Salah waxa ay tusaale fiican u tahay qof walba oo doonaya inuu guul ka gaaro nolosha gaar ahaan kuwa Afrika maadaama inta badan bulshada qaaradani ay ku nool yihiin nolol la mid ah mid wiilkan fadlan walaal si ay ku soo gaaraan sheekooyinka noocan oo kale ah fadlan like saar page-keena Somali Universe ama si fariiq qoraaleed ahaan ah fikirkaaga inoogu soo gudbi hana ilaabin inaad share dhahdo oo la wadaag asxaabtaada mahadsanidin